بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaan soo booqday xerada tababarka ciidanka badda ee Puntland halkaan aan u imid inaan soo booqdo ciidanka ogaado xaaladda ku sugan yahay bogaadiyo shaqada ay dalka u hayaan dabadeedna halkaan aan ka sii daayo war saxaafadeed ku saabsan ciidanka iyo xaaladiisa iyo xiriirka naga dhaxeeya annaga iyo dawladda Imaaraadka Carabta waxaan rabaa marka hore inaan u mahadnaqo soo dhaweynta ciidanka halkan noogu sameeyay waxaan rabaa kaloo ka mahadnaqayaa soo dhaweynta iyo shaqada ay dalka u hayaan ayaan runtii rabaa inaan aad uga mahadnaqo mid waxaan inaan ka hadlo xiriirka soo jireenka ee ka dhaxeeya dawladda isu taga Imaaraadka Carabta iyo dawladda Soomaaliya سأولا سعطان حرير كاسي وحاوي حرير تاريخي مدرر سوتشري وناك بدن وكاد حيو لغدا الدل كاسو ميد جنعسي iyo mid inta ka sii qota dheer waxaan marka hore ku bilaabo marka Imaaraadka Carabtu waa wadan aan la leenahay xiriir soo jireensan sheegay waxaan naga dhaxeeya aan ku hormaraya xiriir ganacsi oo yaani waxa la yiraahdaa biggest trading partner waxa weeye waa wadanka marka la yiraahdo ganacsiga xiriirka ugu weyn dalkan Soomaaliya u leeyahay weeye waxa Soomaaliya la keenahay waxay ku yimaadaan dooyo iyo maraakiib ka timaada Dubai iyo Abu Dhabi ka yimaado weeye waxa dalkaani runtii ganacsigiisu ku dhisan yahay kumayaal Soomaaliya ayaa ka shaqeeya oo ka shaqeysta ganacsi ku leh deegaan ku leh saas daraadeed xiriirkoodu waa xiriir runtii anagu qiimo gaar ah noogu fadhiya qadarin gaar ah naga mudan ilaalin gaar ah nagu waajibina inaanu sameeyno midda kale dawladda Imaaraadka Carabtu waxa naga dhaxeeyay xiriir xagga amniga ah amnigaas oo ka kooban marka eegno Puntland iyo xiriirka la dhaxeeya la dagaalanka xaq jirnimada iyo yaani terrorismka wax la yiraahdo oo ay naga saacidaan la dagaalanka shabaab Daesh waxay kale oo xiriirkaas uu daaraya la dagaalanka burcad badeeda la dagaalanka waxa loo yaqaano tahriibta iyo la dagaalanka burcadnimada mararka qaar kood lagu sameeyo kheyraadka dalkeena ama se kalluumaysiga sharci darrada ah intaas oo dhan waxa qabtaa waa ciidanka maanta halkaan aan ku nimid weeye ciidankaas waa ciidan ku dhow 2000 waxayna ka hawlgalaan Puntland oo dhan ay ka hawlgalaan badiya biriba waxay joogaan Garacad ilaa Boosaaso ilaa Ceelaayay joogaan waxay joogaan Garacad waxay joogaan Eyl waxay joogaan Isku Shuban waxay joogaan Xaafuun waxay joogaan Baargaal waxay joogaan Qandala oo ay kula dagaalamayaan Daesh iyo wixii la xiriira waxay joogaan Boosaaso waxay joogaan Ceelaayo iyo ilaa la soo ka hawlgalaan ciidankaasi marka waxay kaloo ciidankaasi ka hawlgalaan biriga oo ay ka dagaalamayaan kula dagaalamayaan shabaab buuraha galgala iyo Calmadow oo yihiin ciidanka ugu xoog badan ciidamada ugu xoog badan meeshaas ka hawlgala iyagoo meelo kala duwan hadda aan caddeeynin ay ka joogaan kula dagaalamaan xaq jirnimada iyo sharwadayaasha Soomaaliya ku soo duulay ciidankaasi waa ciidan tababaran aan oran karo ciidanka Soomaaliya u tababar fiican weeye waa ciidan discipline leh akhlaaq leh oo dhowrsan waa ciidan garab ku filan oo Soomaaliya cid haysata ay tahay ku shaqeeyo weeye marka ciidankaasi hawsha ay hayaani waa hawl ay Puntland u hayaan waana hawl ay Soomaaliya u hayaan macnaha haday Puntland ka shaqeynayaan ma aha inay Soomaaliya aysan ka tirsaneen Soomaaliya u shaqeynayaan
Puntland aad ogtihiin meesha ay kaga taala Soomaaliya waxaan joognaa difaaca u horeeyay ee Soomaaliya waa Puntland way meesha laga soo galayo shidadu ka imaanayso baddaas furan oo dheer ama badda Casi Indian Ocean kaba dib kasto ka imaanaysa cidda wajahaysa oo ka hor imaanaysa waa Puntland way marka hadii Puntland difaacaana Soomaaliya ay difaacu yihiin way macnaheedu waxaan rabaa marka inaan idin sheego inaan ka codsanayo dawladda Imaaraadku inay ciidankaasi tababarkiisa sii wadaan ay joogaan waana ciidankuna waa jiraya tababarayaasha dawladda Imaaraadkuna waa joogayaan hawshii iyo taageeradii ciidanka ay siin jireenna waxaanu codsanaynaa in ay sii laban laabaan oo sii laba jibaaraan si ay u awoodda ciidanka ay kula dagaalamayaan intaas oo aan sheegnay ha noqdaan shabaab ha noqdaan daacish ha noqdo la dagaalanka burcadbadeeda iyo jariifka iyo la dagaalanka tahriibtaba si marka hawlaha ay hayeen ay ugu guuleystaan nabadgelyada dalkuna iyo xasiloonida ay uga sii shaqeeyaan waxaan rajaynaynaa in ay sii wadaan taageerada dawladda Imaaraadka Carabtu ay siiso ciidanka iyo Soomaaliyaba waxay idin sheegayaan marka sidoo kale dawladda Imaaraadka Carabtu waxay Puntland ka waday maalgelin kaabayaasha dhaqaalaha Puntland $100 milyan oo doolarna ay ku maalgelinayaan ay ugu horeyso balaarinta dekada Boosaasood iyo mashaariic kale oo soo socota aan rajaynayno inay ku daraan ay ka mid tahay waxa la yiraahdo free zoneska ay ka mid tahay waxa la yiraahdo warshadaynta industrial parkska iyo wadooyin oo hadda hawshooda ay noo socoto la hadalkooda aan kala hadlayno dawladda isu taga Imaaraadka Carabta marka way muuqataa in ama ha noqoto taageerada military iyo tababar ay siinayaan Puntland iyo Soomaaliyaba ama ha noqoto taariikhda soo jireenka iyo xiriirka ganacsiga naga dhaxeeya ha noqoto maalgelinta ay u sameeyaan Soomaaliya ha noqoto intaasuba waxay noo cadeynaysaa noo sheegaysaa hadda marka cid annaga noola siman ama noo bedeli kartaa inaysan jirin dawladda isu taga Imaaraadka Carabta ma cadeynaa rabna wax kasta oo khaladaadoo naga dhacana waxaan rabaa inaan ka cudur daaro una apologize garay ayaga in aanu marka qaarkood safgaramaha imaan kara dhiba yar baa dhici kara dhanka Soomaalida ka imaan kara marka in taa laftigeeda aanu ka cudur daaro una sheegno inay yihiin saaxiibo aan jecel lahay lana shaqeynayno wanaagoodana aan runtii aad u qiimeynayno way marka iftiin badan baa ay muuqdo Soomaaliya rajo badan baa ay muuqato Soomaaliya isbedel weyn baa ka socda Soomaaliya waxaan rajaynayaa codsanaynaana in dawladda isu taga Imaaraadka Carabta iyo saaxiibadayada kale ee caalamkuba ay qayb mugle ay ka qaataan isbedelka socda ee Soomaaliya ay dawladnimadeedii qarannimadeedii karaamadeedii sharafteedii dib u la soo laabanayso meel fiican baan joognaa inaan hore u soconaa rabnaa waxaan u sheegaynaa in aysan la'aantood aanan guushaas noo muuqata aanan gaari karin waxaan rabaa marka sidoo kale inaan wax yar ka iraahdo arrimo maalmo dhaweyd social media gaar ahaan ka socotay social media runtii wuxuu noqday dabcan waa fiican tahay media inuu waa laga maarmaan muhiimad gaar u leeyahay laakiin marka qaar kood waxaan moodaa social media inay noqdeen meesha Soomaaliya laga duminayaba laga wada propagandada waxaan jirin la sheegayo ciidamada baxayay diyaarada laga hor istaagay waxaas oo dhan oo been ah iyo khuraafaad ah oo bariyaha laga waday media sax maaha marka waxa wanaagsan media inuu ahaado mid mas'uuliyad wata responsible media loo baahan yahay waxa been in la sheego ma kaliya ma aha social media caadiga ah oo aan aqoon jirnay ayaan u jeedo marka qaar kood warar been oo khalad inay sheegayeen salaalaha saxaabada social America iyo ninka la yiraahdo ninka wariyaha Harun Macruuf waxa uu qorayay oo beenta oo uu ka dhigay inay news tahay sax source fiican uu ka helay wax jira ma waxaasi marka waxaan rabnaa in aan laga shaqeyn xumaan Soomaaliyeed wanaag Soomaaliyeed inaad aad ka shaqeysaan oo waxa la rabaa aad waxa sax ah sheegtaan wixii official ahna
dawladaha cidda saxda ah oo ka wareysanaysa inaad taqaaniin baa la rabaa marka waa idin sheegay in arintaas ay sax ahayn waan ku dhiirigelinay ku yaani tatarsiinaya in aad warka kiisa saxda ah runta in aad tabisaan Soomaaliya waxay maraysaa xaalad aad u wanaagsan dhanka kalena xaalad kala guur ah crossroads baan joognaa marka meesha aan ka aadnaahi wadada aan qaadnaahi hadaa mid khaldan qaadnana meel khalad ku dhamaanaysa hadaa mid sax qaadnana meel sax ku dhamaanaysa waxaan rajaynayaa inaan qaadayno mid saxda waxaan rajaynayaa in Soomaaliya ay guulaysan doonto horuna mari doonto annaga iyo saaxiibadayada oo wada soconaana aan gaari doono goolka aan leenahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin